بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برشو أونلاين. maanta waa maalin jimco ah waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan meel walba aad joogtaan si walba aad inoo daawanaysaan. mowduucan wuxuu ku saabsan yahay shaqo abuurka iyo dhalinyarada. si gaar ah wuxuu ku saabsan yahay in aad ku shaqaysan karto xirfadaha gaarka ah ee aad leedahay. ha noqdaan kuwa waxbarasho la xiriira iyo kuwa la xiriira nolosha caadiga ah. waxa laga yaabaa inaad taqaano xirfadaha gacanta laga qabto sida makaanikada, baabuur wadista iyo waxyaabaha kale oo la halmaala. sidaas darteed maanta kadib waad ku shaqaysan kartaa xirfadahaasi adiga oo aan cidno u shaqaynayn ugana faa'iidaysanaya internetka. sidaas si la mid ah waxaad dadka bari kartaa xirfadahaasi adiga oo lacaga badan ka shaqayn kara maalin walba. mowduucina oo faahfaahsan ayaa daawan doontaa. ku soo dhawow barasho online. sida ciwaankaaga muuqdaba ciwaankeena maanta wuxuu ku saabsanaa ku shaqayso xirfad walba oo aad taqaan adigoo shaqaale noqonin. $100 hal maalin. Infopreneurship. sidee ku soo ragali kartaa inaad ku shaqaysato xirfad gaar ah oo aad taqaan adigoo aan cidno u shaqaynin maalin walbana ka faa'iidayo $100 ama wax la mid ah? ma dhici kartaa? haa, way dhici kartaa. oo sidee ku dhici kartaa? waxay ku dhici kartaa waxaad dadka baraysaa ama ka iibinaysaa xirfadda ama aqoonta ku gaarka ah ee aad adigu leedahay adiga oo isticmaalaya internetka aad maalin walba isticmaasho. mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay infopreneur. infopreneur waa nooc ka mid ah hal abuurka taas oo dadku ay kaga faa'iidaystaan in ay ku soo bandhigaan ama ay ku iibiyaan xirfad gaar ah oo iyagu ay leeyihiin ama ay dadka ku baraan aqoontooda. tusaale, haddii aad tahay arday ka baxay jaamacad ee wax soo bartay yaqaano mid ka mid ah maadooyinka takhasuska ku ah, waxaad soo bandhigi kartaa aqoontaada. waxaad samayn kartaa channel waxbarasho adiga oo bulshada baraya mid ka mid ah maadooyinka aad aqoonta u leedahay. sidoo kale haddii aad leedahay xirfad gaar ah sida xirfadaha gacanta laga qabto sida harqaanka, korontada, biyogelinta, makaanikada, baabuur wadista iyo waxyaabaha la midka ah, iyaduna dadka ayaad bari kartaa adiga oo xirfadaasi ka sameynaya koorsooyin. caqabadaha ka imaan kara koorsooyinka xirfadaasi dadka bartay, dhibaatooyinka ay kala kulmaan, waxyaabaha tikniiga ah ama xeeladaha gaarka ah ee xirfadda aad leedahay ee aad horey u aragtay adiga oo dadka la wadaagayo. sidaas si la mid ah ayaad uga faa'iidaysan kartaa waxa loo yaqaano inaad soo bandhigto xirfadahaada oo ah infopreneur, oo ah aragti cusub oo ganacsiga hal abuurka la xiriirto. waxaa jira dad la yiraahdo entrepreneurs ama entrepreneur oo afka Soomaaliga lagu yiraahdo hal abuurayaal ama hal abuure. hal abuuruhu waa qofka curiya aragti ganacsi ama aas-aasa meherad ganacsi isaga oo u bareeraya khatarta maaliyadeed isla markaana rajaynaya faa'iido. kani waa nooc ka mid ah hal abuurka kaasoo qofka uu ku soo bandhigayo aragti cusub oo aan horey u jirin isla markaana sameynaya ganacsi cusub rajaynayana inuu faa'iido helo. sidaas si la mid ah qofkan waxa uu u bareerayaa wax loo yaqaano khatar maaliyadeed. waxaa laga yaabaa aragtida ganacsi uu soo bandhigayo inaysan ahayn mid ku habboon xilliga uu soo bandhigayo ama xaaladda uu ku soo bandhigayo. sidaas darteed way dhici kartaa inuu khatar kala kulmo, balse adigu waxaad ku shaqayn doontaa xirfadda loo yaqaano infopreneur oo way ka duwan tahay xirfaddani. sidoo kale waxaa jiro wax la yiraahdo businessman oo ah qofka ganacsadaha ah. qofka ganacsadaha sida aan wada naqaano waa qofka soo iibsada badeeco ama adeeg dibna u iibiya si uu faa'iido uga helo. sida caadiga ah ganacsaduhu wuxuu soo iibiyaa badeeco isaga oo faa'iido saaranayo kadibna ka iibinayo macaamiishiisa dibna uga helayo faa'iido.
sidaas ayaa waxaa loo yaqaanaa ganacsi. ganacsigu waxaa dhici karta inuu yahay mid horey u jiray oo badeeco uu horey u yaqaanay keliya soo iibsado dibna u sii iibiyo. khatarta ka imaan karto aad ayay u yar tahay marka loo eego xaaladda uu ku shaqaynayo. sidoo kale waxaa jiro mowduuca maanta ka hadlayno oo ku saabsan waxa loo yaqaano infopreneur. infopreneur waxaa loo yaqaana waa qofka iibiya badeeco ama adeeg uu aqoon iyo waayo aragnimo u leeyahay una sharxo macaamiishiisa kuna iibiyo internetka. infopreneur sidoo kale waxaan dhihi karnaa waa qof walba oo internetka wax ku iibiyo isaga oo u sharxaya badeecada, xirfadda, aqoonta ama waxyaabaha uu sida gaarka u yaqaano inuu bulshada ugu soo bandhigo internetka, isla markaana uga sameeyo haddii ay waxbarasho tahayna koorsooyin uga sameeyo, haddii ay badeeco tahayna sharaxaad buuxda uu ka siiyo badeecadaasi uu qofka ka iibinayo, isla markaana uu halkaasi lacag ka helo. qarashka ka geli karana aad ayuu u yaryahay marka loo eego hal abuuraha caadiga aan naqaano iyo ganacsatada. halkani aan ka ogaano farqiga u dhexeeya saddexda nooc ee ganacsiga ah ee aan kor ku soo sheegnay. waxaa ka mid ahaa waxa loo yaqaano businessman oo ah qofka ganacsadaha ah, badeeco ayuu soo iibiyaa dib ayuuna u sii iibiyaa. sidaas si lamida waxaa jiraan dhahnay entrepreneur oo ah qofka hal abuur ka sameeya ee badeeco ama adeeg hore u jiray wax inta ku soo kordhiyo dib u iibiya, halkaasna faa'iido badan uu ka helo. sidoo kale waxaan jiraa dhahnay waxa la yidhaahdo infopreneur oo ah aragti cusub oo ganacsi ah, iyaduna suuqa aad uga ganacsan karto adiga oo iibinayo badeecada ama adeega ama waxyaabaha aad heeso una sharxaya macaamiishaada una sameynayo koorsooyin gaar ah. haddaba aan sal fiirino halkani tufaax oo ay soo wada iibsadeen saddexdaani nin oo 3 taytal ama 3 fildi ku kala jira. ninkani waxa uu ka soo bixiyay $1 hal xabo oo apple ah ama tufaaxa ah. waa ninka ganacsadaha ah. ganacsadaha halka xabo tufaaxa waxa uu iibiyey $1. waxa ugu fadhiyaa $1. qarashkiisa waxyaabihii uu ku soo iibiyey, baaburaaci, canshuurtii, dhammaan marka loogu dardaro waxay oo dhan waxa ugu fadhiyaa $1. wuxuu iibiyey $1. halkaas waxa uu ka faa'iiday lacag $1 ah halkii xabo oo tufaaxa ahaa. waa ninka ganacsadaha ah. ninkii hal abuurka ahaa hal xabo tufaaxa oo ugu fadhiyay $1, qarashaadkiisii, canshuuraadkii, gaarraacii, waxyaabihii kaleeto marka lagu daro dhan $1 ayuu ugu fadhiyay. waxa uu ka sameeyey hal abuur. waa ninka wuu fikiray, maskaxdu shiilay, wuxuu ka sameeyey tufaax, cabitaanka tufaax ka samaysan. cabitaankaas wuxuu yidhi waxaan iibinayaa $4.99 oo ah lacag $5 ah ayaan iibinayaa halkii gasaac ama halkii dhalo ee cabitaanka ka samaysan tufaaxa. sidaas qofkaas wuxuu ku faa'iiday hal abuurka ah $4 iyo bar, halka saaxiibkiis businessmankana uu $1 ka faa'iiday maadaama applekii $1 ugu fadhiyay uu iibiyey $1. haddaba ninka infopreneurka ah oo ah mowduuca maanta aan ka hadlayno wuxuu kaga duwan yahay labada nin kale. ninkani $1 ayuu ka soo bixiyay hal xabo tufaax ah, baawraaci iyo qarashkii dhanka galay way ka galeen. ha yeeshee $1kii waxa uu sameeyey bejkiisa ayuu soo fariistay facebookga ama youtube-ka, kadib waxa uu dadka u sharxay how to make apple juice, sidee loo sameeyaa cabitaan laga sameeyey tufaax. koorso ayuu ka sameeyey. koorsadaas dad badan ayaa iska diiwaangeliyey. dadka iska diiwaangeliyey koorsadiisii waxa uu ka helay lacag $499 ah oo lacag $500 ah. $500 ayuu ka faa'iiday hal xabo tufaax ah. waan fahmi karnaa farqiga u dhexeeyo in aad soo bandhigto xirfad gaar ah. ninkan waxaa laga yaabaa inuusan wax kale, aqoon kale iyo xirfad kale uusan lahayn, balse uu yaqaano sida cabitaanka appleka ama tufaaxa loo sameeyo. sidaas darteed koorso ayuu ka sameeyey. wuxuu yidhi sidee loo sameeyaa cabitaan tufaax laga sameeyey. koorsadiisii dadka iska diiwaangeliyey iyo koorsadiisii markuu dhameeyey intaas lacag ayuu ka faa'iiday. marka tan waxaan dhihi karnaa waa hal abuur casri ah, faa'iido badan aad ka abuuri karto. waayahay mid kale aan fiirino, adiguna keebaa tahay halkan ku qoran. ganacsadihii sida caadiga wuxuu sameeyey hal xabo oo qara ah ayay soo wada iibsadeen 3 nin aan wada ogeyn ee ganacsadaha, hal abuurka iyo hal abuuraha
casriga ah ee internetka ku shaqeeya. ninka ganacsadaha ahaa $3 qaraha ugu fadhiyey $4 ayuu gaday, wuxuuna ka faa'iiday $1. sidoo kale hal abuurkii waa nin aad u fikiro, wuxuuna sameeyey qarihii $3 ugu fadhiyey cabitaan ayuu ka sameeyey, waxa uuna iibiyey $8 cabitaankii markuu u dhamaaday ama galaaskiiba sidaa doonto dheh. ugu dambeyn wuxuu ka faa'iiday ninkaas $5 lacaga. ninkii infopreneurka ahaa hal abuuraha casriga ahaana waxa uu sameeyey sidee cabitaan qara laga sameeyey loo sameeyaa ayuu koors ka sameeyey. koorsadiisa marka uu koorsku soo gabagabeeyey waxa uu ka faa'iiday lacag $150 ah. bal isbarbar dhig saddexdaani qof, mid waliba waxa uu la yimid aragti ganacsi oo shaqaynaysa, balse midka aan rabno maanta oo aan kugu dhiirigelinayo inaad abuurto qarashka ugu yarna uu kaaga bixi karo waa waxa loo yaqaano infopreneur. tusaale kaloo nool haddii aan eegno, gabar ayaa waxa ay qortay sida xayeysiin loogu sameeyo shirkadda eBay oo internetka wax ku iibiso. waxa ay qortay warbixin ku saabsan sida xayeysiinta loogu sameeyo shirkadda eBay. waxay qortay 5 page oo ku saabsan warbixinteeda. waxa ay soo galaysay internetka, waxayna ciwaan uga dhigtay sidee internetka xayeysiin loogu sameeyaa shirkadda eBay. halkii qof oo page 5taas page degsanaysa waxay tiri waxaan ka rabaa $10. 5teeda page waxaa download gareystay ama degsaday 108 qof hal maalin gudaheed. 108daasi qof walba waxa ay ka qaaday lacag $10 ah. sidaas ay waxaynu ka faa'iiday $180 iyada oo hal maalin ku shaqaysay. marka waxaan dhihi karnaa waa hal abuur casri ah, dhalinyaraduna ay abuuri karaan oo ka faa'iideysan karaan. haddii aad tahay xirfad leedahay waa abuuri kartaa, macallimiinta ayaa ka faa'iideysan karta oo koorsooyin kusoo bandhigi karo, dhakhaatiirta ayaa sidoo kale kusoo bandhigi karo iyagoo cudurrada iyo sida loo daweeyo dadka kala talinayo, isla markaana halkaas koorsooyin ka abuuri kara. sidoo kaleeto nin dadka bara sida shimbirka baqbaqaaqa loola hadlo ayuu koors ka sameeyey. ninkani waxa uu dadka bari jiray sidee loola hadlaa shimbirka baqbaqaaqa. kadib dadka marka uu baro qaab free ayuu ku barayaa. marka uu baro kadibna wuxuu leeyahay si aad ula hadasho shimbirkaada una kobciso caafimaadkiisa iyo horumarkiisana aad uga fikirto, waa inaad u iibisaa badeecooyin ama cuntooyin gaar ah oo loogu talagalay. cuntooyinkaas ayuu dadka ka iibiyaa, halkaas ayuu faa'iido badan ka sameeyaa. waxaan rajaynayaa inaan isla fahanay mowduuceena maanta oo ku saabsanaa waxa loo yaqaano infopreneur. guud ahaan mowduuceena intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.